sidii wax looga qaban lahaa dadka dhibaatada haysato loo caawin lahaa matalan ka soo qaad agoomaha carruurtii mujaahidiintu ay ka tagtay kuwii shahiiday waxay u baahan yihiin xanaano waxay u baahan yihiin daryeel tacliim waxay u baahan yihiin in la ogaado oo aan sidaa lagaga tegin naafada halganka ku naafooday qaar baa lagu go'aan gacmuhu go'aan amba waxay kaloo jirkii ay go'aan oo u baahan in loo sameeyo kuwa istinaaci amba artificial ah mujaahidiin kale qaar bay weli rasaasi ku jirtaa oo paralyzed ah oo iyaguna u baahan in caafimaadkooda wax laga qabto waxaa jira qaar iyaguna xaggii maskaxda wax uga dhimeen dagaalkii iyo dhibaatadii ay ku jireen awgeed oo psychologically u baahan iyaguna in wax laga qabto amba dhibaatooyinka hore ahaadeen amba runtii siday u badan yihiin iminka dhibaatooyinkii dalka ka dhacay xoreyntii kadib ay ididiilo xumo iyo niyad jab oo dad badan ku dhacay oo mujaahidiin ka mid ahaa isna ay ku jiraan kolka sooyaal runtii waxaan u sameynay in ay arrimaha wax ka qabto dhibaatooyinka caynkaas ah iyo sidii mujaahidiintii soo dagaalantay ay uga qayb qaadan lahayn dib u dhiska dalka oo iyagoo caafimaad qabo oo moraal fiican ay soo habeyn lahaayeen sidii halganka labaad ee iminka noo bilaabanaya wax looga qayb qaadan lahaa si mujaahidiinta loo habeeyo oo dib u dhiska ay wax uga qaataanna sooyaal barnaamijyo ayay u dejisay ay kaga qayb gelayaan hawshaa guud ee dalka ka socotay ee waajibka intii dalka la xorooyay kadib kolkaa jimciyadda mujaahidku runtii oo cid haddii la caawinayo runtii annagaa ugu mustaxaqsanay laakiin kama xumintaa waayo annagu qudhudayadu cidna maanu ogeysiin arrintaa hase ahaatee marka ay timaado ayaynu arki hadhow haddii asana matalan tartan lagaga helo oo doorashooyin baa iman doono taban haddii xisbigaa dee doorashada helaa oo asana noqon waayo oo nacaabo waayo iyadu waa halkeeda laakiin waxaan ku dadaalaynaa in aanu shuruuc sii qabanqaabino loo adeegto oo la caawisa oo xisbigii kasta ay ku guulaystaa in uu xukuumadda waddanka noqdo khasab kaga dhigi karaa in ay wax u qabato dadkii dalkan soo halgamay kolka runtii shirkii burcee beelaha qodobadii toddobaad ahaa ee la baasgariyay qodobka toddobaad ayaa sheegayay in mudnaanta koowaad dhinac kasta laga siiyo mujaahidiintii dalka usoo halgantay golaha dhexe fadhigiisii labaad iyada qodhigeeda lagu baasgareeyey